بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات كليبكeenan kooban waxaynu ku soo qaadanayna laba qodob. waxa weeye qodobka waxa weeye maxaa ku raday booqashada madaxweyne ku-xigeenka SSC Khaatumo oo gobolka Cayn booqasho ku maraya iyo deegaamo hoostaga waynu u hambalyeeynaa. qodobka kalena waxa weeye waxaynu ka digaynaa dhagarta Xasan Sheekh marka sii gudbiya oo gaarsiiya haddii aynu awalan ku horeyno qodobkaas booqashada madaxweyne ku-xigeenka. runtii madaxweyne ku-xigeenka waan bogaadinaynaa, marar horena waynu ka hadalay booqashadaasi inay muhiim tahay. gobolkaasi waxa weeye gobolkii waxa weeye halganka waxa weeye maxaa ku dhahday runtii dhalay waxa weeye maxaa ku dhahday maamulka SSC waxa loo magaranaysaa inuu waxa weeye dee ka horeeya bay ahayd deegaamada oo dhan oo maamulku isagu marka ugu horeysa uu ka maartay ka hirgalo. xoogaa gaabisaa jiray, xoogaa gaabiskaasna inuu hadda soo afmeermayo baynu rajaynaynaa insha allah bidnillaahi kariim. waxaynu leenahay hambalyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga la socda. dadka reer gobolka Caynna waxaan leenahay aad iyo aad baa dadka soo aydiin eegaya reer SSC insha allah bidnillaahi kariim. doorkiinu door weyn weeye. waxa weeye maxaa ku dhaha wadnuhu meesha uu maxaa ku dhaha dadka waxa weeye maxaa ku dhaha jirka intiisa kale u joogo ayaad u joogtaan. waxa weeye reer SSC hawlka madaale weli waa hogadii. cashuurta ha la bixiyo, maamulka ha la daadajiyo sidaad halganka ugu taagnaydeen. maamulka waxa weeye dhismihiisa waxa weeye maxaa ku dhahda waa inaad iyo dhammaystirkiisaba waa inaad waxa weeye qaybteena ka qaadataan. waxa weeye maxaa ku dhahda allana ha idin guuleeyo baan leeyahay. intaa ka bacdi walaalayaal qodobka kale madaxweynaha xasan sheekh maxamuud dhagarta xasan sheekh uu maleegayo ee ummadda Soomaaliyeed u maleegayo waa mid ka halis badan kuwa ay waxa weeye inoo maleegayaan kuwa xalana jooga, kuwa ay inoo maleegayaan Itoobiya ee ay dhulka ay ku doonayso, kuwa ay inoo maleegayaan al-shabaab. dhammaantood waa ka daran yahay waxa weeye maxaa ku dhaha dhagarta xasan sheekh. sababtu tahay xasan sheekh waxa weeye maxaa ku dhahday waxa isku darsaday dhac iyo boob iyo dil iyo maxaa ku dhahda dagaal oganimo iyo qabyaalad inuu dadkii waxa weeye ku dhex abuuro. waad aragteen oo dalkii dagaal baa ka socda, gobol kasta iyo degmo kasta dagaal baa ka socda. dagaalka xasan sheekh baa fangaraynaya, waa dagaal siyaasadeed, waa dagaal lagula dagaalamayo dad siyaasiyiina oo maamula jooga ama Puntland iyo maxaa ku dhahda Siciidani ha noqoto ama waxa weeye maxaa ku dhahda qoorqoor iyo galmudug ha noqoto ama lafta gareen iyo maxaa ku dhahda ha noqoto waxa weeye koonfur galbeed ama ha noqoto waxa weeye maxaa ku dhahda Jubbaland iyo Axmed Madoobe ama ha noqoto waxa weeye maxaa ku dhahda Hirshabeelle oo waxa weeye maxaa ku dhahda aynu ognahay waxa ka socda maxaa ku dhahda beledweyne. waxa oo dhan xasan sheekh baa ka dambeeya dhagaaraha dadka waxa weeye missionkaas waxa weeye xasan baa ka dambeeya. waxaana isu diyaarinayaa waa qorshihii dictatorka cusub ee qarnigan ee Soomaaliya. sidaynu hore u sheegnay waa Ismaaciil Cumar Geelka allaha Soomaaliya, waa siisiga Soomaaliya. dadkan waxa weeye maxaa ku dhahday waxa uu u marayaa oo uu magaranaysaa dagaalada sokeeye ama dagaal beeleedyada uu uga dan leeyahay. wuxuu rabaa dad waxa weeye maxaa ku dhahda cawaan ah oo ku taageera waxa weeye qabyaalada iyo maxaa ku dhahda dulmiga uu kursiga ku doonayo oo qabiil ugu taageera ayuu doonayaa. isagoo waxa weeye maxaa ku dhahda qabiilkii dhacaya oo aad arkaysaan waxa xamar ka dhacaya boobka iyo maxaa ku dhahda dhaca xamar ka socda. waxa weeye maxaa ku dhahda kuwa waxa weeye maxaa ku dhahda dowladdii ka dhex socda oo maqlayseen oo hadda maanta oo ugu dambeysay shalay oo ugu dambeysay waxa weeye maxaa ku dhahda diyaaradii hawada Soomaaliya isticmaalayay qarashaadka ay bixin jireen dhammaan waxa la siiyay NGO baa la siiyay oo Dubai baa lacagtii lagu shubayaa. waxaad maqlayseen hadda ayaamihii dhaweyd ee dooda cashuurta cusub uu soo rogay waxa weeye maxaa ku dhahday yacni dacwadii iyo maxaa ku dhahday cabashooyinkii ganacsatada waxaa ka mid ahaa 9 cashuurood oo aan ku dhicin qasnada dowladda in dadka laga qaado. 9kaa cashuurood waxay ka soo baxaan madaxtooyada oo waxa weeye laga soo amraa. waxa weeye qaadkii waad ogeydeen, dumarkii way qaylinayaan, haddeer ay qaylinayaan oo waxa weeye maxaa ku dhaha halkii marduuf awal $4 lagu cashuuri jiray halkii kiilo hadda waxa weeye maxaa ku dhaha $6 baa lagu cashuurayaa. dalkii boob baa ka socda. xaggan kale dagaal ooga weeyo dagaaladii maxaa ku dhahda qabyaaladeed baa ka socda
oo dadkii Soomaaliyeed waa la kala geeyo waa la kala dilay sidaa darteed waxa weeye maxaa ku dhahay Ethiopia isaga u shaqeynaya al-shabaab isaga u shaqeynaya cadowga Soomaaliya xalana jooga isaga u adeegaya cid kasta oo ummadan waxa weeye maxaa ku dhahay marka waxa weeye waa mission weeye waa robar kii uu magaranaysa sheegaya Omar weeye oo la isticmaalayo oo waxa weeye maxaa ku dhahday la tusay waxa weeye kursiga la tusay kursigaasa lagu order gareeyay oo memorygiisa iyo maskaxdiisa dhan uu ku mashquul maqan yahay wuxuu rabaa Soomaaliya 30 sano soo socda in khariidada laga waayo haddii dadka Soomaaliyeed ay kala dhintaan oo 30 sano ay haystaan 30 kaasna inuu kursiga ku joogo oo qabqablanimada uu kursiga ku joogo ayuu doonayaa sidaa darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya ay kaca kor u qaado calanka Soomaaliya kaca dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay dalka badbaadiyaan 34 sano ayaad u dhimanayseen waxa weeye qax iyo maxaa ku dhahday dagaalo sokeeye iyo maxaa ku dhahday tahriib iyo magafanimo oo qaar badan ay magaranaysa maxaa ku dhahday ay gaaloobeen oo mustaqbalkiina mugdi ku jira dalkiina iyo dadkiinuba halis baad ku jirtaan ka camaadin leeyahay ilaahayna haydin waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh